si aad u ilaaliso badqabka ama caafimaadka maskaxdaada ku dadaal sideedan shay ee soo socota kow sida hortiina aad ka arkaysaan si aad u ilaaliso caafimaadka maskaxdaada waa inaa hurdo caafimaad leh oo hurdo caafimaad leh caafimaadku wuxuu u yaqaanaa hurdo kugu filan oo ugu yaraan 7 saac ama 8 saac xiriir ah qofka qaangaarka habeenkii inuu hurdo ayaa loo baahan yahay sidoo kale xilli hore qofka inuu jiifto waa hurdada caafimaadka inta laga hadlayo xilli horena oo soo kaca oo yani 4 ama 9 fiidnimo ama 8 habeenimo ama 2 saac habeenimo wixii ka dambeeya inuu iska jiifto 5 uusan hurdada gaarsiin ama dhaafsiinin oo ka soo tooso yani saas ayaa wanaagsan caafimaad ahaan marka hurdo kugu filan waqti ahaan waqti fiicanna jiifo taas ayaa la dhahaa hurdo caafimaad leh haddii marka arrinkaa aysan dhicin oo qofku hurdadiisa oo qalqaliyo ama habeenka oo daaho ama maaragtay maalinta oo jiifto habeenka shift shaqeeyo يعني arrinkaas caqabada fara badan ayaa ka dhashto oo waxa qofku imaanaya sida hortiina waa ka arkaysaan in jirku iska caabin waayo xanuunada nafsiga ah oo bulshada aad kugu badan sida hortiina yani ka arkaysaan sida stresska niyadjabka walwalka cabsida oo xaaladan dadka yani inta badan qurbo joogta ay ku badan tahay oo inta badan waxa laga yaabaa qofku inuu habeenka jiifanin oo maalinta jiifto ama habeenka oo shaqeeyo wax la mid ah ama oo la qabsaday inuu maalinta jiiftay wax la mid ah ama wadan cimilo qaboban oo kale qofka jooga waxa laga yaabaa subaxii oo dhan inuu iska jiifto iska hurdo habeenkiina ma aragtay oo soo jeeday wax la mid ah marka xaaladan waxay ku nugleynaysaa maadaama qalqal oo hurdadaada ku yimid waxay ku nugleynaysaa xanuunada nafsiga marka haddii hurdadaada ay qalqalsan tahay aan isku aragtay walwali stress niyadjab iyo xaaladaas inaa u nugushahay ama mar walba ay kugu soo laalaabtaan dabcan ciladaada waxay u badan tahay halkan ka timid hurdada iska sax insha Allah marka qodob koowaad ina fahanteen ayaa rajaynaya marka qofku uma baahna inuu ma aragtay mar walba daawo qaato isbitaal tago ciladiis wuu og yahay macnaha already hadii ma aragtay hurdadiisa ay qalqalsan tahay labo sida hortiina ka arkaysaan si caafimaadka maskaxdaada sare ugu qaado waxa u baahan tahay yani jimicsi marka jimicsiga muxuu ka caawiyaa maskaxda qofka marka uu jimicsi sameeyo waxa kordho qulqulka dhiigga ee gaarayo xubnaha kala duwan ee jirkiisa si aad ah maskaxda sida qormada hortiina ka muuqata maadaama yani shaqo adag ay ka dhex socoto maskaxda yani waxay u baahan tahay xad dhiig oo ku filan si uu u gudato shaqo maalmeedkeeda marka haddii qofka yani jimicsigiisa yar yahay qulqulka dhiigga ee gaaraya maskaxda ayaa yaraado haddii qulqulka dhiigga oo yaraadana ciladahan soo socda ayaa qof ku yimaado oo wax kuman ah idinka dhanba ay wada garanaysaan laakiin laga yaabo inaadan ka fikirin inay dhankan ka timid oo qofku waxa la dhahaa jimicsigiisa marka uu badan yahay yani sida cilmi baarisada kala duwan hortiina ka arkaysaan waxay sare u qaadaa moodkiisa yani xaaladiisa gaar ahaan farxadiisa oo hormoonada ama dheecaanadan qaabilsan farxadda iyo reereenta maaragtay ay sare u qaadaa oo yani chemicalskan ama dheecaanadan hortiina ka muuqda ayaa maskaxda qofka ay soo deysaa markuu jimicsi sameeyo marka jimicsiga kaliya saac 10 badan ku soo sharaxnaa qofku inuu ordo gym taga saas maahan balse ugu yaraan waa inuu hal saac socod sameeyo oo maaragtay jiiro dheer qofka soo galay wax la mid ah ama 3 daqiiqo macnaha jimicsiga ka mid tahay oo qofka guriga uu iska joogo maanta oo yani guriga uusan ka bixin يعني دقيقة عريري ومركي إيماني سوا مركز لكن قفكو تو السعود كيسي دقاقيس بدين هاي وعركتان انت بندتك ستريس كأيو أما نيجبكي حنونا دا سوءاتكو وقو بدين هاي وعدتك بدنا وعذرنا النفسي يعني وكو بدين وعدتك بدنا قريها جوغو مركا مر والبو يعني صعود كاد او يري هاي ومر والبو ديعانا الوسو دينا يعني اي يريهين oo jimicsiga maadaama uu yari ay socodka mar walba dheecaanadan farxadda iyo reereenta ku siina ay yarihiin ee dhiigaada ku yiraadaan waa mar walba oo diiqo iyo ciriiri aad dareento yani sida qoraal kurtina waa ka arkaysaa sidoo kale qofka waxa ku imaanayo yani wax loo yaqaano self deprecating thought wax loo yaqaano qofku imaanayo ah qofka in fikrad is hoosaasin waxa la dhameynaa qofka self confidence inuu lumo oo inta badan dadka waxa u badan oo jimicsiga aan sameyn gaar ahaan dadka aad ku cayil tusaale ahaan yani qofku waxa laga yaabaa dhar aad u waaweyn inuu xirto waxa laga yaabaa markuu dad la fariisanayo inuu jirkiisa fiiro ku mashquul sida calooshiisa wax la mid ah waxa laga yaabaa mararka qaar neefta inuu isku celiyo meelaha qaar markuu joogo yani dhibaato badan ayuu la kulmaa qofku markuu aad u cayilan yahay sidoo kale qofka aad caatu u yahay asna jimicsi sameeyno murqiisa jirkiisa oo san dhisin si la mid ah sidaas waxa laga yaabaa dhowr dhar inuu isku kor gashto asoo markaas niyad ku dareemayo yani qaabka jirkiisa oo yahay qofka asaan nafsadiisa in dadka la gaarin ba asaan nafsadiisa nacaaya ama la xumaanaysa maaragtay haday noqolad miisaankiisa dharka oo xirnaa waxa laga yaabaa dhar badan oo dharkiisa kamid uu guriga yaalo qofku inuusan xirnin sabab la xiriir in yani maaragtay cayilkiisa ama jirkiisa qaabka u yaalo ay soo bandhigaya marka doo caatay dhar ku dhagan qofku inuu gashto ku adkaane hadduu cayilan yahayna
يعني ما aragti sidoo kale ku adkaanay marka qofka laakiin miisaankiisa markuu dhiso dhan kale marka ka eegno jimicsiga saa dhowr nooc ah hadda marka miisaanka laga hadlayo yani qofka inuu jimicsiyadan ma aragti meelaha gymka oo lagu sameeyo kale oo tagaya wanaagsan ama kubadda oo kale aad u ciyaaray wax la mid ah taas marka waxay ka saacidaysaa in qofka jirkiisa oo dhismo taasna marka waxay ku sababaysaa qofka xitaa dhar yar oo fudud iska xirto yani inuu naftiisa comfort ku dareemo oo deganaan ku dareemo laakiin taas beddelkeeda haddii sidan oo kale qofku yahay yani asiga ayaa nafsadiisa ma aragtay dhibsanaya in dadka la gaarinba tan marka waxay ku abuuraysaa marka qofka walaaci walwal yani si nafsi ayay u saameynaysaa oo qofka farxadiisa iyo reereentiisa ayay ka qaldaysaa yani markiina fahanteen ayaa rajeynayaa oo caafimaadka maskaxda sidaas ayay u saameynaysaa dhan kalena waxaan sheegnay inay u saameynayso isla qodobka labaad micnaha yani qofka jimicsi la'aanta in hormoonada iyo farxadda inay hoos u dhigayso markiina fahanteen ayaa rajeynayaa qodobka labaad waa qodob aad muhiim u ah saddex sida hortiin aad ka arkaysaan qofka yani sida jirka xubnaha kala duwan ee jirkeena ay ugu baahan yihiin mid walba yani cuntooyin gaar ah ay muhiim ugu tahay si la mid ah iyo maskaxdana waxay u baahan tahay cuntooyin gaar ah oo ka caawiya shaqadeeda maadaama shaqooyin fara badan oo kala duwan ay ka socoto marka cuntooyinka yani gaarka ah oo aadka muhiimka u ah si gaara micnaha cuntooyinka dhan qofka isticmaali kara laakiin si gaara cuntooyinka ay tahay qofka inuu xoogga u saaro mar walba yani saxankiisa inuu ka fiiriyo ay tahay waxa ugu horeeya sida qoraal kurtina ka arkaysaan waxyaabaha proteins ka samaysan sida hilibka gaduudan aad u muhiim ugu yahay maskaxda sidoo kale yani caanaha lo'da aad u muhiim ugu tahay maskaxdeena caanaha ariga aad u muhiim ugu tahay saa arkaysaa hortiina yogurtiga waxaan la dhahaa oo caanaha laga sameeyo yogurtiga noocyo kala duwan ay leedahay aad ay muhiim ugu tahay caafimaadka maskaxdeena sidoo kale ukunta marka laga hadlayo waa mid ka mid ah waxyaabaha sida aadka muhiim ugu ah micnaha waxaa la dhahaaba يعني توب 3 ku jirta yani saddex cunto hadii la keeno mid kamid waa in ukunta ahaataa marka caafimaadka maskaxda laga hadlayo soo kale qofka malaayga muhiim u yahay yani caafimaadka maskaxdiisa Soomaaliya aad u taqaana ma aragtay madax malaay cunay dhahan ma aragtay somehow way fahamsan yihiin macnaha bulshada yani malaayga inuu muhiim u yahay caafimaadka maskaxdeena soo kale ukunta waxa laga helaa vitamin B oo aad muhiim uga ah caafimaadka maskaxdeena sidoo kale cuntooyin qofku u baahan waxa kamid ah waxyaabaha qamadiga ka sameeyay sida rootiga waxa la mid ah afagaadhada oo kale aad ay muhiim ugu tahay caafimaadka maskaxdeena liin macaanta oo kale sidoo kale aad ay muhiim ugu tahay caafimaadka maskaxdeena marka cuntooyinkan qofka inuu aroorti ama subax hore oo qaata ayaa wanaagsan ma aragtay oo isticmaalaya wanaagsan oo sida hadda sawir kurtina ka arkaysaan yani tusaale rooti qamadi ka samaysan iyo ukun subax hadii uu ku quraacdo yani caafimaadka maskaxdiisa aad ay u caawinaysaa si kooban macnaha cuntooyinka laga hadlayo rooti qamadi ka samaysan iyo ukun haduu qofka yani isticmaalo cabitaankan oo u isticmaala caanaha lo'da ama caanaha ariga haduu cabitaan ahaan u isticmaalo yani intaan haduu isku isticmaalo qofka ama liin balbeelmada oo kale cabitaan ahaan u isticmaalo saarkaysa liin macaanta waxaan la dhaho intaan macnaha la isku daro haduu qofka saan u isticmaalo caafimaadka maskaxdiisa aad ay u caawinaysaa macnaha cuntada intaan ayaa ku soo kooban kartaa sida sawir kurtina ka arkaysaa quraac ahaan oo qofku isticmaali karaa asaas ayaana wanaagsan marka adigu hurdadaada saxan tahay subax markaa soo toosina lambar 2 jimicsi sameeyay lambar 3 quraacdaana cunay oo sidaana waa 3 mina sa arkaysaan qodobka afraad waxay tahay waxyaabo maskaxda caafimaadkeeda saameyn kara waxa kamid ah multitasking waxaan la dhahaa oo ah yani qofku inuu shaqooyin badan hal mar isku qabto marka hadaa arday tahay iyo hadii aad tahay qof shaqeeya oo ma wanaagsana shaqooyin fara badan in hal mar isku qabato oo qofku waxa fiican yani one by one oo midna uu qabto laakiin maskaxda sida u samaysan tahay waxay tahay sida hortiina ka arkaysaa inay door bidaba inay shaqooyin badan qabato laakiin taas waxay saameyn ku leedahay sida qoraal kurtina ka arkaysaan wax soo saarka maskaxda natiijada oo 40% ay hoos u dhacdaa productivity-ga ama ma aragtay soo saarka macnaha natiijada ama result fiican ay soo saarto shaqada ay qabanayso 40% ay hoos u dhacdaa sababtan waxay tahay sida hortiina ka arkaysaan maadaama qofka maskaxdiisa uu qasbayo yani waxaysan rabin oo ku qasbayo oo yani shaqooyin badan ay xamili karin yani oo ku qasbayo taas waxay keenaysaa inuu hoos u dhac ku yimaado productivity soo kale waxay abuuraysaa stresskaas ama cadaadiskaas faraha badan maskaxda oo saarayo qofka inuu daal fara badan dareemo xanuun maskaxda ka dareemo yani xanaaqiisa oo bad dabeecadiisa ay lunto sababtoo shaqo ka tan badan oo raba inuu ku qasbo maskaxdii taas marka dabeecadaada ay luminaysaa moodkaada ay bedelaysaa ugu dambeyn stress fara badan iyo xanaaq fara badan iyo yani dabeecadaada ay ka mid noqonaysaa inaad noqoto qof yani aggressive oo yani caradiisa ay dhowdahay dad dhaqankaadana waa u xumaanayaa marka si dhaqankaada u wanaajiso yani caafimaadka maskaxdaadana u ilaaliso yani waa in shaqadaada aysan noqonin يعني mid isku dhaxyaaca marka hal shay ina focuska ama diiradda saarto
ayaa wanaagsan marka taasna waa dhanka shaqada oo qofku wax uu qabanayaa marka adoo hurdada saxan tahay jimicsigii sameeyay cuntada hortiina ka muuqata isticmaalay shaqadan iska hagaajiyay maaragtay hal shay xooga saaray qodobka shanaad waxaa fiican qofka in uu la falgalo dadka positive-ka oo caafimaadka maskaxda kaliya waxyaabaha qalqalka geliya ama dhibaatada ku keeno kaliya ma ahan qofka shakhsiyadiisa iyo wuxuu qabanayo yani adoo intaas marka iska soo saxday oo ah wax adiga ku quseeyay yani bulshada xaggeeda markay timaado waxaa fiican inaad ku xirmato dadka positive-ka ah ama dadka maaragtay sida fiican ama wanaagsan u fikira oo waxaa la dhahaa qofka yani negative-ka ah wax kastoo wanaagsan ama yidiila ama hadaf ah u sheegto hadal negative kuu sheegaya ama markuu kuu sheekeynaya xaaladihiisa kaaga sheekeeya bis waxa xun yani dhibaato ku dhacday arrin يعني dadka qaar waxay dhahan khibrad ayaa ka qaadanaysa laakiin shayga markuu soo laalaabto adiga yuu ku saameynaya waxyaabo aad sameyn rabtaa laga yaabo inuu ku dhaha saas anaa sameeyo waxba ma kasoo hagaagay saas yani qofka in yani saameyn xun oo kugu reebo beenaa marka dadka negative-ka ah maaragtay waxa waaye mar walba negative ay kaaga sheekeynayaan oo wax macnaha xun ay kaaga sheekeynayaan oo yani ku niyijibinaya ama kuu diidaya inaa maaragtay horey u socoto ama يعني adiga wixii mataqana aad sameynaysay ay wax ka sheegayaan ama ay durayaan taasna waxay keenaysaa in yani maaragtay wixii aad ka niyi jabto oo dadka yani positive-ka maadaama motivation ay ku siinayaan ay ku kicinayaan maaragtay ku dhiirigelinayaan in ayaga maaragtay la saaxiibta ayaa wanaagsan oo waxaa la dhahaa stay away from negative people mar walba ka fogow dadka xumaan sheega ah maadaama aysan ku dhiirigelinaynin oo ay ku niyijibinayaan waxaa fiican inaad ka fogaato ayadana macnaha maskaxiin ayay ku dhaawacaysa arrinkaas oo walaac fara badan waxaa samey rabtay ayaa kugu furmi kara ama niijab fara badan ayaa dareemi kartaa marka waana xanuun nafsi ah dabcan marka wixii kugu soo laalaabtaan yani waxaa laga yaaba qof inuu ku dareensiiyaba inaan waxba ahaynba yani adiga dhanba aad tahay qof yani liito aan waxba qabsan karin nolosha ma aragtay si kasta u dadaalo aan loogu talagalinba waxaa inuu sameeyo marka taasna waa mid maskaxiin qofka u dhaawacaysa marka dadka negative-ka ah ka fogow maskaxda ayay dhaawacaya marka adigoo hurdadaas saxan tahay يعني لبا جمعسيغادا ما aragtay hagaajiyay saddex cuntada iska hagaajiyay afar shaqooyinka iska hagaajiyay shan dadka ala macaamilaysa ay yihiin dad positive ah qodobka lixaad sida hortiina ka arkaysaa daraasado la sameeyay ayaa waxaa lagu ogaaday in maskaxda qofka ay u baahan tahay ugu yaraan 120 daqiiqo ama 2 saac si kala hadii loo dhigo isbuuci ama toddobaadkii mar yani qofku inuu ku qaato meelaha yani ma aragtay dalxiiska oo dhirta cagaaran ay ku badan tahay meelaha baararka ee qurxoon oo maaragtay qofku u fariisan karo xeebaha iyo wax la mid ah xeebaha aad muhiim u siiyay meelaha cagaaran labadaas aad muhiim u ah qofku inuu waqti ku qaato maadaama qofka yani badanaa isbuuci oo idil oo ku guda jiro xalinta mushkilada isdabayaal ah waxay taas ku sababi kartaa xanuunada nafsiga ah sida niyijabka iyo walwalka isla hadalka iyo wax la mid ah kuwaas oo qofku sii nuguleyn karo xaalado daran oo maskaxeed marka isbuucii oo dhan maadaama arday aad tahay laga yaabo mashquul iyo madax xanuun fara badan aad ku jirto ama aad shaqaynayso laga yaabo maaragtay biilka reerka iyo waxa la mid inaad ka walwalsan tahay hal maalin isbuucii 2 saac ka mid ah marka maalinta fasax aad tahay oo toddobaadkii isbuucii mar 2 saac ka mid inaad banaanada ku qaadato oo banaanada u baxdo ama banaanka magaalada ha noqoto ama xeebaha ha noqoto yani inaad tagto 2 saac aad soo qaadato aad ayay muhiim u tahay maskaxda yani fresh ka soo dhigaysaa wixii suntii iyo wasaqdii faraha badneed iyo wixii walwalkii stresskii xaaladuna ayay ka nadiifinaysaa oo adoo fresh ah dadka inta badan markay tagaan xeebaha way arkaan macnaha qofka soo fresh ayuu soo laabtaa sida soo wax problem oo dhibaato ku dhicin toddobaadkan oo kale marka isbuucii kale wuxuu ku bilaabanaa adoo nadiif ah oo maskaxda deganto fresh ay tahay oo fircooni badan dareemayo balse haddii qofka isbuuc walba toddobaad walba iska wada maaragtay shaqada oo sannasanin maalinta jimcaha ama maalinta fasax yahayna maaragtay oo يعني adoo ardayoo kala wax aqris iyo maaragtay wax xifdin iyo ka shaqeyn exercise oo galo yani taas waxay ku sababaysaa qofka inuu xitaa waxbarashada nooco ciriiri badan ku dareemo marka si kasta oo shaqo kugu taalo isbuucii hal maalin ka mid ah ama saacado kooban oo ka mid ah maalin qofka waa inuu maaragtay oo nasiino ku qaato oo daraasadaha yani waxay cadeynayaan in qaadashada saacadahaas toddobaadkii mar ay qofka dhaxal siiso yani maskaxda furfuranto xasisho misna ay dareento firfircooni deganaan farxad iyo reereen badan inay dareento markaasi aad u kobciso marka caafimaadka maskaxdaada uguna hortagta xanuunadaas ku dadaal in ugu yaraan isbuucii yani maalinta fasaxa ah aad la qaadato ee naftaada oo xitaa waxaa la dhahaa qofka waxaa fiican maalmaha xitaa oo shaqeynayo saacado ka mid ah break time inuu qaato oo saakiya shaqo gasho duhurka markaa يعني shaqada ka soo baxda haddii aad ku laabanayso shaqada waxaa fiican hal saac inaad meel cafeteria oo kale aad fadhiisto koob kafee aad cabto
sida kafeega yani maadooyin waxaa ku jira dopamine levelkaada hormoonka farxadda iyo yareynta iyo deganaanta kor u qaada ku jiro oo maaragtay maadooyinkaas marka aad ay muhiim u yihiin qofka hal koob oo kale loo isticmaalo maskaxda uu dejiyo يعني كليز ميل أو فريستو هذا البدن يبوق ويضاد يوصل تلفون كهذا اللي يوصل له مارت ميل جون أو فريست أيا وناكسنو أنت شغال وصل وانا بريك تايم كمعنا أما واحد برشة دا كوجرتو حلق بريك تايم أما شغال دا كوجرت حلق بريك تايم أو ماركت أو كسول لعبنا يسمعنا أنت يرى ساعة مسكحة إنها تجسو ميل جون أفريستو كلجا عامستو تلفون هذا استعمال واحد بعض داون aad ay u wanaagsan tahay inaad dejiso maskaxda qodobka ugu dambeeya waa wax akhriska oo qofku wax akhriskiisa haduu badan yahay yani waxay saamaysaa hab fikirka qofka waxay sare u qaadaa hal abuurka qofka aqoonta qofka iyo garaadka yani maskaxeed ee qofka ilaa heer ay gaarsiiso in qofka yani fikrada maangal ah oo curiyo يعني قفك أنا القف هالعبور له ما دام وحقس كيس وبدين هاي وحيا اسكو حر معايا مركو قفك مسكحيا ما عرفتي جارها وحلا قفك هو آخرنا يدو فهم سين القرآن كوكل حتى دا آخرنا يستحاول ناكسينا في التفسير كيس أتقانه لفظي كرينا آخر سمعنا بدل مقوس سمينيس لدن حتى كوما سمينيسو شيء قفك هو حكى فائدة مركو فهم سين دو سن فهم سين وحبك ما فائدة يعني وقدام بين قفك وحاول ناكسن إن يعني عيل كيس أول دم هذا الكوليسترول نوعهم يعني ديجيسو كبدين واسك حكمه هدي دي كري سكر أو قوي اسك حكمه صابته حنونا عندن وحيد داوعان حديدة مسكحة قوية يعني حنجرة يكحري كران استروج وهلا يقف كوي مانكرا أما ديجي يا مسكحة كفر مكرا أو ما ركتي دبعتك لجرتوا نوع استروج كمده ما حدد يديك كحر مكرو مسكحة قيب كمده يعني من كرت سار كيسار كوا حالة عاد الدر إنه قف كلوجي جعني وحلا مده يدعي كرتا إن شاء الله عشان كان حيوها وشرح الدورنا عافيمات كإندها أنتوين كوا ناكسن وحيابها إيتا إنها كإلى على سو أرجع ضعيفين كان مهوس ودي كرو يتلوين فرب بدن وكوا عدنا يعني كشرح الدورنا إن شاء الله تحنا هو الصعون دونا دو إلهي لهذا بس عشان سو كوا بينا السلام عليكم